xaaladda bariga dhexe ayaa marka kasii dambaysa kasii daraysa taasoo saameyn doonta dhammaan caalamka oo dhan. Warbaahinta ku hadashay afka dowladda Islaamiga ee Iran ayaa waxay sheegtay inay 30 sano dambeysay ay filaysay inuu dhici doono dagaal oo Mareykanku ku soo qaadi doono dowladda Iran, balse waxay waanu kasii diyaar garoonay. Waxay dhiseen thousands underground kaasoo ku keediyeen hubka nooc walba leh. khaasatan waxay underground ka dhiseen meelaha ugu dhow ee uu ku yaalo baysaska militariga ee Mareykanku ku leeyahay dhammaan bariga dhexe oo dhan. Tusaale ahaan Mareykanku wuxuu sameeyay inuu gebi ahaanba Iran uu ugu soo dul wareejiyay baysas military, sidoo kale badda soo fadhiistay. Iran ta kadaalid waxay sameysay inay underground dhisto meel kasta oo Mareykanku ku leeyahay base meel u jirta 400 ama 300 oo kilomitir ayaa waxay ka sameysay underground taasi ku aastay hub nooc walba leh. sidoo kale ilaa xalay markay Iran bilowday argoosiga ay ku qaadayso dhammaan Mareykan iyo xulafadiisa iyo gaar ahaan baysasku